wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta galmudug ayaa maanta tababar soconayay muddo 3 cisho ah u soo xirtay shaqaalaha iyo howlwadeennada dowladda hoose ee degmada Dhuusamareeb. tababarkan oo ay ka wada qayb galeen agaasimayaal iyo shaqaale ka tirsan dowladda hoose ee Dhuusamareeb ayaa muddadii uu soconayay waxaa lagu barayay shaqaalaha qaab dhismeedka shaqada iyo sida xafiisyadu isu hoos tagaan, iyadoo muddadii tababarkan uu socday si dheer loogu wadaagay aragtiyo ku saabsan sida ay muhiimka u tahay horumarinta shaqooyinka dowladda hoose iyadoo sare loo qaadayo kala dambeynta maamulka. gudoomiyaha degmada Dhuusamareeb ahna duqa caasimadda Macalin Cabdiraxmaan Cali Maxamed Geedo Qorow ayaa wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta galmudug kaga mahad celiyay sida ay xoog u saarayso tayeynta shaqada agaasinka iyo sidoo kale shaqaalaha dowladda hoose ee degmada Dhuusamareeb. waxaan runtii ka mahad celinaa culumtiina la siiyay oo aad iyo aad runtii u heer sareysay oo aan wax badan ka faa'iidnay. cilmigu hal maalin meel kuma dhamaado, وفوق كل ذي علم عليم بإلهي قف كستو علم لا قف كسر ياجره. علمه مركب مال هو الصوك باللوضاء مال ده جري كرام مال هاي وصل رأي وجرا إلى معركة علمه وأنبياء إلهي ووصي ضامر كدمنا إلهي سبحانه وتعالى حق يسوي أنت هذا قف كستو أو وحبرته وحبا كدمن لكن رنتي وهوين أيان وفا إيدي وعن كل شقتيك دونه هدي لا يراه أنت أنا شقت تجينا هدي لا يراه ويس أبدا جرينا أنا غلفت النضو علومتينا لسي بل سيدان وتطبيق لهين يا سيدان أفهمني ده أنا أسكوي جديد وأنا مالما صوص عضا مهمة جارن رنتي وإنه لا هذا سبنار كانوا ضد هدي شغل اسكو قدرة أو ضد كلام مجعبه ضد كواحد لمركو أهارت سيد ده إنه يوصي شغل اسكول ليهين يسي قيبها أكليهين يسي اسكو هاستجان إنه برتان. وزير كوزارة arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta galmudug Cabdiwaayeel oo soo xiray tababarkan ayaa kula dardaarmay agaasimayaasha iyo shaqaalaha ka faa'iideystay tababarkan in ay ka sii shaqeeyaan sidii loo horumarin lahaa xafiisyada iyo shaqooyinka dowladda hoose ee degmada Dhuusamareeb. waxaana uu tilmaamay in tababarkan uusan noqon doonin kii ugu dambeeyay balse wasaaraddiisu ay ku dadaali doonto sidii loogu soo laalaaban lahaa shaqaalahan. waxaan ku adkeynayaa markaan waxa weeye waa filayaa intiina halkaan joogta oo marxaladda hadda imtixaanka ku soo maray inaad ku filan tihiin shaqooyinka mujtamaca aad matalaysaan inaad ku filan tihiin aad iyo aad baan u aaminsanahay. waxaan aaminsanahay maalmahan seminaarkii socday iyo shaqadii hadda xooggareeda aan soo marray inaad ka dhaxalaysaan kala dambeyntu xataa xurmada ay leedahay in la kala dambeeyo oo lagu kala dambeeyo muxuu ahaay xataa maamulka iyo jaranjarada aan samaysanay sida loogu kala dambeynaya muhiimadda ay leedahay inaad aragteen baan iyadana filahayaa. hanaankan hadda degmada marka laga hadlayo ama caasimadda marka hadda halkaas charterka lagu dhajiyay markaad fiirisaan wuxuu leeyahay sida loo leeso hoos imaanayo baa charterka ka muuqda. waxa loo sameeyayna waxa weeye ilaa meesha ugu hooseysa ah qofka jooga ilaa meesha ugu sareysa in sidaas maamulkii isu daba socdo oo qofba qof uu ku soo xigo. waxaan doonaynaa runtii oo ka codsanaynaa waxa weeye arrintaas seminaarka aad qaadateen ama waayo aragnimada aad ka dhaxasheen muddadii hadda aad halka joogteen inay noqotaa meelo aad u gudbisaan tuulooyinka iyo beelaha kale iyo meelaha kale in hoos yimaado beel waxaa la yiraahdaa meesha degmada ku xigta. mas-uuliyiinta sare ee dowladda hoose ee degmada Dhuusamareeb ayaa muddo ka howlanaa sidii sare loogu qaadi lahaa xirfadda shaqo ee in ka badan 20 agaasimo oo ka howlgala xafiisyada dowladda hoose. waxaana tababaradan ay qayb weyn ka noqonayaan sidii loo dardargelin lahaa shaqooyinka kala duwan ee dowladda hoose. Cabdullaahi Warsamarooble, Galmudug TV, Dhuusamareeb.